ورحمة الله وبركاته أصحابتي أنا كحري يوتيوب كانوا حالين لنا هاي رمضان مبارك سوري وهذا يعني هذا قصة كجنال كانوا حاول لنا هاي فضل سبسكرايب صار ما أنتوا حامرتينه وحنا اللي جو مرساحب كينا مرنا ولا كينا ناصر جي ناصر فضل سوري وعندما برنامجك عوض وحا تحنو سؤالين عاود علي هاي سؤالية أبي السعودة سؤالنا هاي أصلا كل سؤالنا ناصر سؤال شاون سؤال شكوات برد العش وحواي محا أصره بربر كفوز كإسخاء اوكي ناصر سؤال هذا اسكو جوي انا كجوابه maxaa asal u ah burburka qoyska sidaan ognahay guurku waa nimcad ilaahay bixiyo wax wanaagsan dadka binaadamka waa wax isku baahin ay ku noolaadaan waa wax lagu tarmo waa wax dunida loo joogo mar walba guurku waxa burbur u ah asalkiisa dhowr siya wada jirto haddii aan falaaqeeyo waxa kamid ah haddii mar guurku soo dhex galo waxa la yiraahdo shaki iyo su'aalo badan isweydiin badan waxay ma karo burbur waxaa kamid ah su'aalaha ninka inuu mar walba ugu cadaadiyo halkeed ka imaatay halkeed jirtay naagta in la weydiiyo mar walba meesha ku maqnayd iyo meesha jirtay sida hadda anaga dhaqan u leenahay xaaskaaga oo kale inaad isticmaashid mobilkeeda wax fiican ma ahan ninkaaga naagtan iidan wax wanaagsan ma ninkeeda telefoonkiisa inaad daba gasho so labadiin waxaa tihiin dad isdoortay oo nolol naga dhexayso haddii labadiin midkiina midka kale u dhaqmo sida nin dambi baarista oo kale qof walba oo dabagal sameeyo يعني marka meel gacanta la gashay waxyaabo badan kaaga iman karo qofka binaadamka sida dumarka oo kale marka guursatay dumarka waxa laga yaabaa aday before aday ka hor yani naagta inay ahayd waxay leedahay asxaab waxay leedahay family waxay leedahay qaraabo hadii aad dheedid ani kaliya yani naagta markii la dhalaaday ma lagu guurinay nolol soo martay adduunyo soo martay iskuul soo dhigtay waqti soo qaadatay dad badan way baratay marka waxa wanaagsan qofka inaad ku ixtiraamtid noloshiisa يعني إن دافتد بارتانك سؤالها يعني عدك سيدا أو كله أنت كمادة أنت أسعارتا وعن في الحياة أنا فهمت شيء جابته. برد العشاء سؤال شنو سيدي لو لسه كرا قوس جعل باحترام قوس سؤال شنو واحد أسكت دي ناس الجي بعد ما صمت هاي سيدي لو لسه كرا قوس جعل احترام قوسا قوس جعل احترام قوسا حدارتي waxaa wanaagsan horta marka hore markaad guursanaysid faasta waa inaad guursataa qof adigu jecel faastaas muhiim ah qofka guursanaysa aad dooranaysid waa inuu ahaadaa lamaane adiga kugu qanacsan adigana inaad tahay qofkaas qof ku kalsoon oo aamini kartid taasi saldhig u tahay guurku wuxuu wanaagsan yahay mar walba in laga fiirsado qofka nolosha wadaagayso waa muhiim mar walba waxaa wanaagsan inaad la noolaato qofka waxaad ku dooratay inuu lahaado dhaqanka haddii yani dadka bini'aadanka dabeecadooda isku mid ma noqon karaan mararka qaar waxaa la doortaa qof dabeecadaada soo dhaweynayo boqolkii 80 hadduu yahay taa la qaadan karaa boqolkii 90 macquul laakiin boqolkii 50 ma la qaadan karo qofka haddii dabeecadaada isku dhaweydii macquul waa la guursan karaa noloshana ku fiican tahay mar walba waxaa wanaagsan qaasatan ragga iyo dumarka markaad qof dumar guursanaysid waxaa wanaagsan inaad guursatid qof salaada tugto naagta salaada tukanayna oo xiriirka ilaahay jarayso aad aragtay qabtid ogow maalin xiriirkaaga way jaray waa waxa lagu يعني كمونه وناكسنا نورشة نبتاع وهي عرورة معنا خويه نخوني خويه ذني وحي وناكسنا تاين التعقف تربية ده سو إسم سليق دي نوع هذا إني لا يبحرنت هاي إني يعني صلاة ده وحي تكتر وحي وقروا ما كربناتك ما نمسترنا الدنيا ده قف والبقف كرو إلى وترجع إنه نمستره هذا القف نمسترنا روا لما هلا الدنيا ده مجوا قف كحرة ده بعدا قاردو كريا إن تكون صبرته إن أقدر قادته لكن هذا الشيء أقدر قادني قف كدوية تقول صلاة مرة waxaan xasuusinayna qofku inuu yahay dumar hadeeta misrag yahay inuu salaad ilaahay xiriirkiisa ilaahay ninki gooyo guurkiisa waxba maalin uu jiray waxaan leeyahay waxaan filayaa su'aasha waa inaan kaga jawaabay asxaabteena hadaad ku cusubtahay channelkeena subscribe saar sida su'aalahaaniti ay wabadiin sidoo naasir sheegay way soconayaan ilaa ramadaan ilaa iid soconayaan saa maqashin fadlan nagu xirnaa youtube-keena waxaan ilaa leenahay asxaabteena ramadaan mubaarak wassalaamu calaykum warahmatullahi